طيب ان sidii aad ogtahayba markii ay dhacday Sheekh Shibille inuu sheegay aan meel uu muxaadaro ka akhrinaya ama lecture ka jeedinaya markaas inuu dalka Ingiriiska ku soo arkay 700 oo gabdhood oo Soomaaliya meel lagu hayo gabdhahaas oo qaba waa soo hadalka u dhigay xanuunka HIV AIDS oo asagu sidoo uu sheegay indhihiisa ku soo arkay dabadeedna waxaanu isku daynay inaan la xiriirno maadaama arrin halis ay tahay dadkeena in laga wacyigeliyo loo baahan yahay sheekhuna uu yahay sheekh caalima dabadeedna isla mar ahaanta ummadda Soomaaliyeed karaamo iyo sharaf ku dhexleh hadalkiisu culays weyn ayuu leeyahay sida awgeedna waxaan la xiriiray markiiba NHS-ka ama wasaaradda caafimaadka ee dalkan Ingiriiska waxaana weydiiyay arrintaas inay jirto dabadeedna muddo ayay iga maqnaayeen wayna igu soo warceliyeen waxayna ii sheegeen arrin lala yaabo inay tahay oo weligeed dhicinin isla mar ahaantaana ay qariibsadeen haba yaraatee wax sal iyo raad oo ay leedahayna aysan jirinin gabdho Soomaaliyeed oo 700 ama 300 ama 500 inaysan jirinin dabadeedna waxaan weydiiyay inay jiraan haddaysan 500 iyo 700 aysan jirinin inay soo baaraan muddo 3 wiiga kadib ayay soo noqdeen waxayna igu soo celiyeen ay sheegeen inaysan jirinin xataa 10 qof oo Soomaaliya oo xanuunka HIV positive qabta AIDS inaysan jirinin oo ayaga u rajiis garaysan isla mar ahaantaana isku meel lagu hayo arrintaasuna culays bay leedahay maxaa yeelay sheekhu hadalkiisa waxa ku jirtay haddaan xusuustaydo aysan khaldanayn inay 700 ay isku meel ku jireen asaguna uu soo arkay dabadeedna waxaan weydiistay inay nasiyaan qoraal cadaynaya arrintaas inaysan sal iyo raad lahayn waxayna ii sheegtay gabadha u qaabilsaneyd dhinaca warfaafinta NHS-ka leeyahay Michelle David isla mar ahaantaana warfaafinta ka shaqeysa qaybta iclaamka ee wasaaradda caafimaadka ee Ingiriiska NHS-ka loo yaqaano waxay tiri warqadda aan ku qorayno uma qalanto fariinta aan dirayno maxaa yeelay waa wax aan sal iyo raad ba lahayn arrintaas waxay NHS-ku amase laanta wasaaradda caafimaadka Ingiriisku ay noo sheegtay oo cad ay igu sheegtay inaysan arrintaas sheekhu uu sheegay sal iyo raad haba yaraatee aysan lahayn ayna jiraan laakiin dhanka kale dad xanuunka qaba laakiin tiradooda ay ku tilmaantay 3 qof ilaa 2008kii ilaa iyo haatan oo Soomaali ah ama dhalashadoodu jinsigoodu Soomaali yahay oo HIV la nool magaalada London inay ku nool yihiin isla mar ahaantaana ay yihiin bukaan socdo dad jiifa aan ahayn laakiin dad daawo la siiyo oo laga warqabo ay yihiin 700 oo gabdhood 500 oo gabdhood 300 oo gabdhood xataa 100 gabdhood oo Soomaaliya xataa 10 qof oo Soomaaliya oo habla ah ama raga oo xanuunka qaba oo wasaaradda caafimaadka Ingiriisku ay ogtahay siday ayagu ii sheegeen ma ay jirto marka waxa weeyaan halka ayay arrintaas ku dhamaatay anigana dhex maraysay waxaanan jecelnaysanay marka inaanu arrinta dadweynaha Soomaaliyeed u soo bandhigno si sheekhu hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yiraahdo ilaan waa caalim weeyaan waa sheekh weeyaan karaamo iyo sharaf mudan yahay asagu markaas uu keeno cadayn oo markaas la ogaado meesha wax ka jiraan si bulshadana loo wacyigeliyo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac taqwada Ilaahay midnimo mahadsan Cabdisalaan thank you waxaan filay daawadayaal inaad taas ka booteen wadaadadeena ama culimadeena kor ayaan u fiirnaa waa dad wax noo sheega markii wax naga khaldiina oo tagno aanu wax weydiino diinta naga badiya arrintan siday doonto ha noqoto laakiin qof kasta oo Soomaali ama wadaad ha noqdo ama dawladda u shaqeyn wasiir noqdo ama madaxweyne ha noqdo hadalka uu bulshada Soomaaliyeed la qaybsanayo u sheegayo waxa fiican ama haboon in uu qofku ka fiirsado maxaa yeelay dadku way wada daawanayaan wixii khaldan oo arkaanna waxay raadinayaan sababta uu qofkaasi ama sheekhaas ama wasiirkaas ama madaxweynahaas ama wuxuu doona ahaado uu ku yiri waxaan rajeynayaa in arrintan ay ka faa'iideysteen ilaahay kulligii ha badbaadiyo waxaan leeyahay sheekha ittaqillah halaga fiirsado hadallada qaarkood oo leeyahay barnaamijkeenana way noo sii socdaa